ما شاء الله وفتي hogaaminayo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khalifa iyo gudoomiyaha degmada Boocame Faarax Cali Madow ayaa gaaray deegaanka Dan ee degmada Boocame ee gobolka Sool waxayna waftidaasi xariga ka jareen xarun caafimaad oo dadka deegaankaasi si isku tashi ay u dhisteen sidoo kale waftida isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa gaarsiiyay xarunta caafimaadka ee deegaanka Dan sariiro daawooyin iyo agab caafimaad oo xaruntaasi lagu furayo waxgaradka odayaasha iyo haweenka deegaanka Dan ayaa soo dhaweeyay waftidan ka socota wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool maanta halka waxaan noogu yimi isuduwaha gobolka Sool Maxamuud waxaanu idinka mahad celinaynaa dadkiina aad soo booqateen magaaladiinii ku soo dhawaada boqolkiiba boqol meeshan waa MCH-kii tuulada Dan oo u jirta intaasoo kilomitir iyo meesha la saacanood ayaa hooyooyinka umulaya iyo xanuunka iyo caruurta iyadoo ah masaafo aad u fara badan oo dheer ayaa waxa loo qaadi jiray qofku inay ama jidka ku dhiban jirtay ama iyadoo dhibaataysan tagi jirtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin tuulada oo isku tashatay ayaa waxay maanta dhisatay health boskana ama MCH-kan insha Allah wax walba oo yimaadana aan wax kala qabanano sidaanu isugu tashanano wixii naloo ku daro wax laba laabkeed ama saddex jibaarkeed leeg annaga oo ku darsanana waxaanu rajaynaynaa sida maanta aad noo soo salaanteen wixii naga dhiman oo baahiya haday qalab tahay haday guriga dhismihiisa tahay gudoomiyaha ka hadlay waanu mahad celinaynaa wixii naloo qabtay waa boos naga banaana horaankiisina waanu helay waa naloo keenay waxaan laga wada hadlayaa in la soo dhameystiro isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khalifa ayaa ka hadlay isku tashiga dadka deegaanka Dan ee xarunta caafimaadka waxaana uu ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan waxyaabaha ka dhiman waxa halkan laga yagleelay oo ay bulshadu dhisatay gurigan aynu maanta joogno aynu xariga ka jarayno xaruntii caafimaadka waxa anaga waajib nagu ah oo aanu mas'uul ka nahay hadaan nahay wasaaradda caafimaadka in ay shaqeyso xaruntani in xaruntan la horumariyo oo caafimaadka la horumariyo in shaqaalaha la horumariyo waxaanu keenay agabkii iyo qalabkii xaruntani ay ku shaqeyn lahayd wixii dhimanna insha Allah waa soo dhameystirana asuun sida ugu dhaqsaha badan shadana waxaan leeyahay hadii alla idmo gacmooda jirbay wax ku gooyaan intanaad dhisateen waad ku mahadsantihiin intanaad maanta qabateen iyo awoodiina gudoomiyaha degmada Boocame ee gobolka Sool Faarax Cali Madow ayaa soo dhaweeyay isku tashiga dadka deegaanka Dan xaruntan caafimaad ku dhisteen wuxuuna sheegay inay garab taagan yihiin ka maamul ahaan maanta waxaanu joognaa waa Dan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadka Dan ku nool oo isku tashaday oo ku tashaday MCH-kan inay iyagu ay magaranaysaa dhameystirtaan labadan qol insha Allah sida isuduwaha wasaaradda caafimaadku uu sheegay wixii ka dhiman insha Allah oo ballan qaaday ka wasaaradda caafimaad ahaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa haddaanu nahay maamulka degmada Boocame ee anigu aan hadda ka matalayo waxaanu ballan qaadi doonaa insha Allah inaanu sii dabagalno insha Allah waxa idin ka dhiman sidii ay idin ku soo gaari lahaayeen aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad u tashateen ee aad u dhisateen MCH-kan dad badan baa dhaantaan ma sha Allah anaguna waxaanu aad iyo aad ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmaba waxaanu isku taxalluujinaa insha Allah waxa idin ka dhiman sidii aanu idin ku baadi dooni lahayn ama aanu idin soo gaarsiin lahayn diiban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland la sacnood